يكون عالم جابه لما أنت تروح نقول باقي إنه يقول مدق دق وفديان تذكر عبارته على شيء وحسيته كلا دقمة عرقابه خاصة المقالة عرقابه اللي يسوسو جوري أنا أقول باقي إنه بالشدة إن يدتك ضيرتا إدرو فيسن عبارته وضعي وقرقارة إن يسود ويان إن وحي لقبا كريان إن لقبتان كي كم مقنع جوريها دولك دقمة عرقابه السنة بضرب يكسو دقين عادي عاد بيسو دقان مالو والبوحي مع ضد عصب سوى أكسن وقروح بدن بالله سودوية حالة اللي بتقولي مقالة عرقابه وسيرو دولها أمنه باو بالانسان inay dhamaystirto dhammaan wixii umuuro dhex yaalay ummadan reer Sanaag gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xafiiska maamulka gobolka Sanaag ayaa baaqayladana ka soo saaray abaarta ka jirta gobolka Sanaag waxaanu hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ugu baaqay inay gurmad degdeg ah soo gaarsiiyaan dadka dhinaca kale waxa uu barasaabku ka warramay xaaladda nabadgelyo guud ahaan gobolka iyo waliba dadaalada xukuumadda Soomaaliland ay ku nabdeynayso beelaha wadaaga gobolka Sanaag gaar ahaan colaadihii ka dhacay deegaanada Shidan Ceeriyaan iyo Ceelfayn waxaanu sidoo kale uu gudoomiyuhu sheegay in gobolka Sanaag caasimadiisa ay dadkii ka qaxay ay dib ugu soo guriyo noqonayaan ugu horreyn Ilaahay baynu mahadnaqaynaa marka koowaad marka labaad xaaladda guud ee degmada Caarigaabo khaasatan magaalada Caarigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan waa nabadgelyo weeye alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa inuu hirgeliyay shaqooyin badan oo istaba jooga oo madaxweynaha qaranka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu xoog ku saaray inay xasilnaato oo deganaato oo ay xaaladeeda caadiga ahayd ku soo noqoto magaalada Caarigaabo tacabkii madaxweynaha qaranka iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan nahay wakiiladoodii iyo sidoo kale guud ahaan golaha deegaanka degmada Caarigaabo ugu horeeya maayarka iyo maayarka xigeenka iyo xogayaha dawladda hoose dhammaantood iskaash bulsho oo guud ahaan degmada Caarigaabo iyo dadka ku dhaqani ay ka qayb qaateen waxa Ilaahay hirgeliyay nabadgelyadii magaalada Caarigaabo inay sugnaato mar labaad waxa Ilaahay hirgeliyay in ummadii ku kala qaxday ee shaqooyinku kala raleen ay isugu soo noqoto oo nabad iyo deganaansho ay isugu timaado waa aragteen Caarigaabo maanta camarnaanteeda Ilaahay baa fadliga leh Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa bulshada gobolka guud ahaan iyo gobolada kale ee aan kala maarmi karin ay ka mid yahay gobolka Badhan waxaan ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka ummadda iyo isku duubnaanta insha Allah bismillaahi kariim si aynu u joogtayno nabadan iyo wanaagan iyo quruxdan aynu hayno aad mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxda dhaqanka oo runtii xil weyn iska saaray amuurahan inay sidan maanta ahaatana doorka labaad ee marka laga tago madaxweynaha qaranka doorka labaad yeelanaya ugu dambeyntii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa iyagana ururada bulshada kuwa dawliga iyo kuwaan ahaynba oo runtii iyaguna door weyn ku lahaa nabadan Caarigaabo qaranka Soomaaliland oo dhan bay u tahay nabadgelyadeedu guul u tahay bulshada Soomaaliland oo dhan bay u tahay wanaag iyo wax soo kordhay si adkeynteeduna insha Allah bismillaahi kariim bulshada oo dhan bay u noqonaysaa guul iyo wanaag u joogtooba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku mahadnaqaynaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa in horumarkii iyo maxaan ku raahdaa isku duubnaantii bulshadu ay sii laba jibaaranto sii socoto insha Allah bismillaahi kariim waxaana gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse uu sidoo kale u baaq u soo jeediyay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga gobolka Sanaag waxaan doonaynaa inaan si gaar ah uga faa'iideysano inaan ku dhawaaqno horta inay jirto xaalad abaareed oo aad u baahsan khaasatan deegaamooyinka Ceelfayn iyo Garadag
oo runtii roobkii dayrtuna aanu helin roobkii guguna ku yaraa ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmaad khayr qabo degdega baryada koowaad iyo talabaad iyo saddexaad ilaahay baan baryaynaa mar saddexaadka waxaan ugu baaqaynaa guddiga abaaraha heer qaran iyo dhammaan bulshada Somaliland oo dhan inay isugu soo naxariistaan ehelkooda abaartu hayso oo gargaarka iyo inaynu maxaan ku raahdaa isu naxariisano aynu dhexdeena ka bilowna haddii alla idmo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay gurmad degdeg u fidiyaan dadka abaartu haleeshay waxaa sidoo kale degmada Ceerigaabo khaasatan magaalada Ceerigaabo la isugu soo guuray aan ugu baaqaynaa bulshada inay dadka danyarta ah ee duruufaysan ee abaartu wado ay u gargaaraan inay soo dhaweeyaan inay waxay la qaban karayaan inay la qabtaan sidoo kale deegaamo badan oo gobolka la isu guurguuray meel walba oo isu guurguurkaasi ka yimi waxaan ugu baaqaynaa bulshadu inay soo dhaweyso ugu dambeyntii dadkii ka maqnaa guryaha iyo dhulka degmada Ceerigaabo si nabad ah bay ku soo degeen aad iyo aad bay u soo degaan maalin walba waxa yimaada dad cusub si wanaagsan oo qurux badan baa loo soo dhaweeyaa xaaladda nabadgelyada magaalada Ceerigaabo aad iyo aad bay u fiicantay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Sanaag waxa uu ka waramay colaadihii ka dhacay gobolka iyo waliba dadaaladii ay xukuumadda Soomaaliland ay ku heshiisiinayso beelaha gobolka Sanaag deegaamada shaqaqooyin baa ka taagnaa waxa heshiisay laga gaaray 2022 xilli aan markaa gobolkana ku cusbayn heshiisyadaasi ma fulin sababo jira awgood heshiisyada fulintoodii baa maanta xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ay u xarka xidhatay waxa joogay wasiiraha xukuumadda dhexe ka socda oo hogaaminaya wasiirka dawladda amniga qaranka waxa joogay wasiir ku-xigeenkii maalgashiga waxa joogay wasiir ku-xigeenkii diinta iyo awqaafta dhammaantood waxay u joogaan inay garab naga siiyaan fulinta heshiisyadii wax badan baa nooga qabsoomay waxaan rajaynaynaa soo afjaridda shaqaqooyinkii shidalna inaan maanta safar ugu baxna haddii alla idmo insha Allah bismillaahi kariim si wanaagsan oo qurux badan bayna u socotaa oo mahadsantiin mar kale Ceeriyaana si lamid ah oo tii fulinteedii la mudeeyay Ceeriyaan heshiis sida lamid ah waxa laga gaaray 2022 waxaan fulin heshiisyadii la gaaray muddo 2 sanadood dib u dhacay waxaan ayaantii la mudeeyay iyadoo garab siinayaan wasiirka dawladda ayaa wafdiga uu hogaaminay in ay heshiisyadii fulaan baa muddo loo qabtay muddadii loo qabtay baan rajaynaynaa insha Allah iyagana inay ku fusho Ceeriyaana ummadda isugu soo noqoto isu timaado oo is cafido mana aha halka kaliya gooluhu lagu kala maqnaa oo dhan baa heshiisyo ay ka imanayaan ilaa maalinta xukuumaddan dhalatay waxaanu ka shaqeynaynay fulinta heshiisyadii bulshada hore u gashay waxaad ogtihiin nabadgelyadii magaalada Ceerigaabo inay meel wanaagsan marayso waxa ogtihiin inay tii ceelafin ka sii horeysay oo meel aad iyo aad u fiican oo qurux badan marayso oo maanta ay ku leeyahay wanaag iyo qurux soo kordhay waxa soo dhimo waxa ku timi dadaalka iyo maxaan ku raahdaa juhdiga ay xukuumaddu gelisay marka shaqaqooyin yaryar baa nagu haray meelaha qaar ka yar dhacay way ku xigaano insha Allah bismillaahi kariim iyagana wafdigan uu hogaaminayo wasiirka dawladda amniga baa u balansan inay dhamaystirto dhammaan wixii umuuro dhex yaalay ummadan reer Sanaag Cali Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceerigaabo